kaga cabanayeen sixir barar baasan oo wayadan dambe ka jiray guud ahaan Puntland ayaa waxa ay cabashooyinkooda ku soo bandhigeen hoolka baarlamaanka dawladda Puntland iyagoo nad xukuumadda iyo golaha baarlamaanka Puntland ba ka codsaday inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka sixir bararku sababay oo kuwan qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan magaalada Garow oo ka hadlaya dareenkooda dalku suuyay waa ogtihiin waxaanu ka cabanayna waa ogtihiin doolta xagga Soomaaliga la dilay sixir bararka lacagta Soomaaliga la dilay iyo sixir bararka ka cabanayna ama xilka dhiga ama dalka wuxuu qabta ama xilka dhiga ama dalka wuxuu nahay baan aaminsan laakiin ma ahin anagu ma ahin waxaanu nahay oo la gurtay oo la dooxday oo la qashay oo la diirtay baanu nahay waxaanu nahay nalama oga oo waxaanu nahay lama oga oo dawladda nagama warqabto oo doolarku wuxuu marayaa 5 milyan iyo 800 oo shirkadii waxa ku tiraahdeen $1 baa tutuu ka yar lama diri karo mudaharaadna ma daynayna ilaa wax nala qabto haddaanu dhimanayno wiilkii uusan naga harayn haddii kale 24 saac gudahood waxa nala ka qabto annaga dawladda annaga nagu dhisata annagayna wax nagu taa annagayna dad nagu taa annagayna qof nagu taa haddii aysan annaga naarag carruurii iskoolka waa laga bixi waay cashuurkeena gurigayga albaabada waa lagala bax banaanbaxayaasha oo ku sugan hoolka baarlamaanka golaha wakiilada Puntland ayaa waxaa halkaasi kula hadlay xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyagoona ka codsaday dadweynuhu inay isdejiyaan oo ay wax ka qaban doonaan xaaladda sicir bararka iyagoona sheegin 24 saac ee soo socda ay dawladdu wax ka qaban doonto sicir bararka ay dadweynuhu ka cabanayaan والذي لا الله يصير حلبان كيقول في الشيء ولا ليال وحوي شعب دلغاتا الحكومة وحكسوا صارنا يبرموا كوسعلا ورا ما يسترن سيد حلبان كهرباء دي الشيء إذا كنا ودنا بنية ولي هذه بقول له أفر لما تسعى لك ورلورا سيف عم بوحدين أريدت كعبنا سنة وادي سنة إذا كانوا إذا كمدنا هاي دولارka waxaanu ku celinaa hadii ilaahay aanu yeelana hada degdeg waxa uu galana hay'adaha dawladda ee qaabilsan dhaqaalaha noo qaabilsan qiimihiisi uu ka kacay baynu dib ugu celinaa hadii ilaahay waxa weeye waa ka hawlgalana degdeg baa wax uga qabanana إن شاء الله أفرأتك ساعة صوص على ورد كفر أحلام مدمغلق دونتان وأما سنتهين عندي قادة وإذا طلابة شرعية لك قاضية ما مغشا طلابة شرعية لك قاضية شرع سلدي ذكرى مجره مشاهر كاشقالة لغسينا يا هيا الدولة أخو قادرة يا مركا بدي ذكرت كسو دو هون كابل تيفي dadweynaha ku nool magaalada Garowe maanta waxay sameeyeen cabashooyin ku banaanbaxayeen gaar ahaan waxayna ka horsameeyeen hoolka baarlamaanka bal ininka ka baarlamaan ahaan maxay cabashadaas wax ka qaban doontaa bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya hool keebul saxaafada kalaba dadweynuhu waa soo banaanbaxeen cabasho ay muujinayeen oo ay ka hadlayaan arinta sicir bararka iyo sarifka kor u kacay waana wax iska dhacda adduunka oo dhan baa inflation ka dhacaa adduunku hadda waa kala xirmay intii maaragtay xanuunkan rabbaaniga covid-19 ku adduunyada maaragtay saameeyay waa wax iska dhacay oo adduunka oo dhan baa dhaqaalihii hoos u dhacay inflation waa wax dhaca dadweynuhuna xaq bay u leeyihiin cabashadooda dadkii oo qaybna dhulka taalamaata taalo jiifta noqotay qaybna ay mukayfada qowsiga dhex jidho waxaanu aad uga cabanana sicirka yarka uu marayo inta taariikhda bilowda meesha ugu sareysa uu maraya wuxuu gaaray maanta in markii santiyaadkii la joojiyo konton kor u dhaafo arintaas waxa uu wacan waa dawladii oo maamulkii kala baxday ee sicirkii maamuli weyday waxaan aad ula yaabanahay waagi hore dadku siyaasiyiintu damiir bay lahaan jireen oo shacabku damiir bay lahaan jireen oo ismadu damiir bay lahaan jireen dadkii waxa ka dhintay damiirkii arintii laga daqnan mayo maatadii loo daqnan mayo ummadii hore loo daqnan mayo ummadii oo dhan waxa weeye maanta waxa dhacday tuugsayaashii tii laba kula siiyo saddex kula siiyo inay biyo ku gadan waayaan waxaas kale xuquuq ka timaada baarin aad iyo aad looga naxo weeye
in dadka qaybtiisa ay qorraxda soo istaagaan oo laamiga fariistaaneen qabna ay isaga jirto mukayf iyo muxuu ahayto isaga dhex fadhiyaanin waxaas waa arrin aad iyo aad looga naxo waxa weeye marka xildhibaanada iyo baarlamaan wax la iyo madaxweynuhu ku-xigeenku waa inay go'aan degdeg ah qaataan oo waxa weeye shacabka sida loo matalaanin dadkan shacabka lagu ku soo doortay shacabka meesha loo joogaa 66 xildhibaan shacabka meesha joogaan shacabka daysan wax u qabanay waxa weeye meesha kula sabanayeen waxa weeye halka maanta wixii ka dhacay khasaare ka dhacay iyaga geystay isku soo wada duuba arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo waayihii u dambeysay deegaanada Puntland ay ka jireen sicir barar xooggan taasoo sababtay in dad fara badan ay wax gadan kari waayaan. Sharaaca Yaasin Sharaaco, telefishinka caalamiga Home Cable, Garowe.